haddaba aqoonta galbeedka taalla ee waddannadan taalla aragtida qofka muslimka marka lagu eego waxay isugu jirtaa waa waxtar adduun oo qabashna wata dakhalna wata markaan waxbarashada ka warramayno waxay dhahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood unbaa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog uga warramaya waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax daba ku darsanin si awgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productkay soo saartay saynu arkarno culumta bay yidhaahdeen dunida taalla waa 3 qaybood qayb waa la kala qarsadaa laysmana siiyo sinaba laysuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa qaybna waa laysku qasbaa sankaa layska geliyaa waa laysa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaan waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan waa 3 qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba laysu siin waxay yidhahdaan waa culuum siyaada waa culumta keenta waddan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culumta ku saabsan bay leedahay مثلا nuclear weapon iyo wixii ku saabsan laysuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core ideaha ay leeyihiin shirkadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadana ma bixiso core idea مثلا كوكا كولا بقول يا دور سنادود هذا سكرت يي ويلين مركز الدنيا لما قف قوله حتى waxa meesh ku jiro dhan meel bay ku qarsoontay bank bay taala laba injineer qura loo sheega waxa saala isugu qaldo that's all cid kale ogi ma jirto baqol ya dowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xooga abuura taliska abuura waxa abuura la isma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badana la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihin westranka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxa ku saabsan aqoonta ayada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture-tay hadday values-tay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kasta oo timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imka western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaarta reer galbeedku rumaysan yihiin ama LBGT dheh ama kandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun iyo waa san iyo kaas iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu noqon lahaa maxay
of international oo dunida laga yaqaano wadan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ayuu noqon lahayd kaana shaka la iska geliya wadan waliba inuu maal geliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaradda waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan culture iyo values iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro qaybna bay yiraahdeen cilmiga kamidi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxa la kala barto oo dhan jaamacadka fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay waa ku banaantay therefore iyada waa la kala gataa professorkana waad gadan kartaa jaamacadana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka idan waxay dhahaa tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn ee secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb sanka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto iyo qayb mushtarak bini aadamku uu yahay oo cid waliba ay gadayso